July 31 1999 ardayda dugsiga sare ee 17 jirka Beasley oo loo yaqaan JB iyo saaxiibadeed Tracy Holland ayaa socdaalkooda ka bilaabay magaalada Dothan, Alabama iyagoo u socday xaflad dhalasho oo ka dhaceysay magaalada yar ee Heartland, Alabama. laakiin ugu dambeyn gabdhaha ayaa la waayay inkastoo Tracy ay hooyadeed ku wargelisay inay guriga ku soo laabanayaan. si kastaba ha ahaatee gabdhahan ayaan weligood ku laaban doonin gurigooda. meydkooda ayaa la heli doonaa maalinka xiga, balse maxaa keenay dilkooda? ma xafladda mise wadada intay ku jireen? maanta waxaan eegaynaa kiis leh shirqoolo iyo hadimooyin oo ka dhacay koonfur bari Alabama oo kaabiga ku haysa xuduudda Florida. haddaba intaan bilaabin muuqaalkeena maanta, hadday tahay markii kuugu horreysay aad soo booqato channelka, fadlan ku soo biir adigoo saaraya subscribe si muuqaal walba aan soo gelino uusan kuu dhaafin. mahadsanid. JB Beasley waxay dhalatay July 31 1981. waalidiinteeda ayaa lagu kala magacaabi jiray Cheryl iyo Hilton Lanier. kadib markii ay waalidiinteed kala tageen, waxay u guureen magaalada Dothan, Alabama 1984. hooyadeed ayaa jeclaatay nin kale oo lagu magacaabo Jay Bagoon, wayna isguursadeen. sanado badan ayayna ku qaadatay gurigaas iyada iyo 4 walaalaheed ah. JB Beasley ayaa ku kortay inay noqoto gabar aad u furfuran, taasoo waqti badan gelisay barashada qofka ciyaarka, sida qofka ciyaarka biyaanada iyo dabaasha. xitaa waxay howlo ka qabatay dhowr hay'adood iyada iyo walaasheed. waxay baranaysay iskuulka dugsiga sare. iskuulka ayay kula kulantay saaxiibadeeda cusub ee Tracy Holland. Tracy Holland ayaa dhalatay March 3 1982. waalidiinteeda ayaa ahaa Coral Robert Holland, laakiin nasiib darro aabaheed ayaa ka shaqeynayay waaxda booliiska ee Dothan, wuuna dhintay Tracy oo 5 jir ah. markii dambe hooyadeed ayaa guursatay nin lagu magacaabo Mark Robert oo ka caawinayay korinta Tracy. sidoo kale Tracy ayaa ahayd gabar aad u xishood badan, waxayna wada dhigan jireen ayadii iyo JB Beasley dugsiga sare ee Northview, iyagoo mar waliba ahaa gabdho dadaal badan, darajo fiicanna keena waqtiga imtixaanka. JB Beasley iyo Tracy ayaanan ka warhaynin masiirkooda naxdinta leh ee ka saari doona dhammaan rajooyinkooda iyo riyooyinkooda mustaqbalka. July 31 1999 JB Beasley iyo Tracy ayaa ka baxay Dothan si ay uga qayb galaan xaflad dhalasho oo ka dhaceysay magaalada yar ee Heartland oo 100 mayl waqooyi ka jirta halka ay degan yihiin. si kastaba ha ahaatee gabdhahan yaryar ayaanan aqoon u lahayn wadooyinka ay marayaan, balse daqiiqado yar kadib safarkoodii ayay ka soo baxeen magaaladii hooyo. ugu dambeynna way lumeen. abaara 4:30 daqiiqo JB Beasley iyo Tracy ayaa istaagay kaalinka shidaal ee BB agagaarkiisa sida wadooyinka 133 iyo 431 ee Heartland, iyagoo raadinaya tilmaam, isticmaalayana telefoonka lacag bixinta ee xarunta shidaalka. waxay waceen asxaabtooda si ay u helaan tilmaam u horseedi karta inay tagaan xafladda, iyagoo ugu dambeyn tagay xarunta Ozark, Alabama oo qiyaastii 24 mayl waqooyi galbeed ka xigta magaalada Heartland, iyagoo garwaaqsaday inay weli garan la'yihiin tilmaamaha xafladda. kadib waxay istaageen dukaan. Tracy ayaa hooyadeed ka wacday telefoonka dukaanka, waxayna ku wargelisay inay lumeen, waqtigaasna ay joogaan Ozark, haddana ay qorsheynayaan inay iska soo laabtaan. isla waqti isku mid ah, haweeney lagu magacaabo Marilyn Merritt iyo gabadheeda ayaa soo istaagay isla kaalinka shidaalka ee ay gabdhaha istaageen. tilmaam ayayna siiyeen. subaxii xigay Agoosto 1 1999 abaara 8 subaxnimo, Tracy hooyadeed ayaa wacday booliiska si ay ugu wargeliso inay maqan tahay gabadheeda ayna u raadiyaan. maalin kadib booliiska ayaa helay gaariga JB Beasley oo la dhigay wadada Heron Avenue ee Ozark. arrinta la yaab kale ayaa ahayd taangiga shidaalka ee gaariga ayaa buuxay. gaariga ayaa lahaa dhoobo dhanka daaqada darawalka. si kastaba ha ahaatee booliiska ayaa waayay wax calaamad ah oo muujinaya in si qasab ah gaariga lagu galay. gudaha gaariga waxaa laga helay boorsooyinkii gabdhaha ay wateen iyo lacagahoodii, balse gaariga daaqadihiisa ayaa wada furnaa halka daboolka dambe ee gaariga uu xirnaa. furihiina waa laga dhex waayay gaariga, taasoo booliiska cabsi badan ku beertay inay wax un qaldan yihiin. 6 saacadood ayay ku qaadatay booliiska inay furaan daboolka gadaale ee gaariga. markii ay fureen kadib, booliiska ayaa ka soo saaray 2 gabdhood oo meyd ah. xabado ayaa madaxa loogu dhuftay waana la kufsaday. 2 gabdhood ayaa u labisnaa sidoodii, balse surwaalka ayaa ka wasakhaysnaa. booliiska ayaa si rasmi ah u bilaabay baaritaankooda dilka. inta lagu guda jiray wejigii hore ee baaritaanka, booliiska ayaa u maleeyay inay ahaayeen tuugo, balse taa waxaa baabi'inaya boorsooyinkooda iyo lacagtoodii oo aanan la qaadan. xitaa baaritaanka gaariga gudihiisa waxaa laga waayay wax darooga iyo khamri ah. 2 bilood kadib, shaybaarka dambiyada dowladda waxay soo saareen warbixin muujinaysa inay jiraan raadad shahwo oo aan la garanayn kuna yaala surwaalada gabdhaha iyo jirkooda, xitaa qaybta dambe ee gaariga. balse markaan baarayaasha ayaa si lama filaan horumar u sameeyay. 1 bil kadib markii meydka JB Beasley iyo Tracy la helay, nin muddo dheer deganaa Ozark oo lagu magacaabo Johnny William
ayaa soo galay waaxda booliiska ee Ozark, kaasoo u sheegay booliiska inuu markhaati ka ahaa dilka loo geystay labada gabdhood. Ninka ayaa booliisku u sheegay habeenkii uu dilka dhacayay uu u baxay inuu caano u soo iibiyo wiil uu dhalay oo 2 jir ah, indhihiisuna uu ku arkayay dilkan foosha xun. Kadib uu guriga ku soo laabtay isagoo aad u caraysan. Booliiska ayaa aad ula yaabay waxa uu ninka sheegayo inta uu wareysiga ku jiray. balse waxaa cajiib ah ninka oo hadalkiisa isbadbedelaya sida uu sheegay taliyaha booliiska Ozark. ninka ayaa markii hore sheegay in habeenkii la dilayay gabdhaha uu arkayay gaari madow ah oo meesha ka sii cararaya, balse wareysiga intuu waday ayuu hadalkiisa isbedelay. waxa uu yiri waan arkayay marka la dilayay gabdhaha nin tattoo leh ayuu sheegay. laakiin booliiska ayaanan rumaysan warkiisa. si kastaba ha ahaatee booliiska ayaa xiray Johnny oo ahaa ninkii warbixinta siiyay. haddana uusan ka fogeyn gurigiisa halka laga helay labada gabdhood meedkooda. ugu dambeyn maxkamadda ayaa la horgeeyay, balse wuxuu sheegay inuu ka been abuuray wixii uu sheegay oo dhan. habeenkaas uu wiilkiisa caano u doontay waxbana uusan arkin, uuna rabay lacagta abaalmarinta ee booliiska ay ballan qaadeen. balse maxkamadda ayaa diiday qirashadiisa beenta, xabsiga ayaana dib loogu celiyay. Johnny qareenkiisa iyo reerkaba ayaa warbaahintu sheegay inuusan wax laga ku lahayn, uusan awoodin inuu sidan sameeyo. ugu dambeyn xabsiga ayaa laga sii daayay kadib markii la baaray DNA-da iyo shahwada eedeysanahan isku midna ay noqon waayeen. Johnny markii laga sii daayay xabsiga, booliiska ayaa la kulmay dhaleecayn badan, taasoo ah in booliiska Ozark aanu awood u lahayn inuu kiiskan maareeyo. booliiska ayaa helay sawirro ay qaaday CC kaamirada ku agtaala dukaankii ay gabdhaha telefoonka ka dirsadeen. sawirada oo aan nadiif loo arkayn waxaa ka dhex muuqda gaari cadaan ah oo taagan dukaanka agtiisa, balse wax ka soo degaya aanan la arkin. booliiska ayaa la wadaagay warbaahinta sawirka gaariga, balse gaarigan ayaa wax hore laga waayay. kiiska ayaana qaboobay. laakiin sargaalad ka tirsan booliiska oo lagu magacaabo Raina ayaa xafiiska ku aragtay canjalado, taasoo isku dayday inay dhegeysato. balse 3 sargaal oo booliiska ayaa diiday uguna hanjabay inay faraha kala baxdo. waa halkan meesha uu shakiga ka dhashay. sidoo kalena waxay sheegtay Raina in taliyaha booliiska uu gacanta ku hayo cadeymahan, sidoo kalena uu gacan ka geystay in la qariyo. sidoo kalena waxay ka fogaatay inay daaha ka qaado magaca sargaalka booliiska ah ee sida dhabta u geystay dilkan. kadib Raina Carroll ayaa la ogaaday in la jirdilay iyadoo la diidan yahay inay sheegto dilaaga saxda ah. mid la yaab kale ayaa ah January 19, 2016 Keith Coffin, Rex Tyson, Eddie Henderson, Tony Isbify oo ah taliyaha saldhigga iyo Gary Pooch iyo dhammaan saraakiisha booliiska ee degmada Ozark, Alabama ayaa soo gudbiyay dacwad ka dhan ah Raina, John Carroll iyo Dean Matthew inay ka beer abuurteen, laakiin kiiska ayaa la qaboojiyay. 20 sano kadib booliiska ayaa helay nin lagu magacaabo McCraney, kaasoo deganaa goobta meydka laga helay. DNA-diisa ayay u direen shaybaarka dowladda si loo hubiyo biyaha gabadha jirkeeda laga helay iyo tiisa inay isleeyihiin. McCraney ayaa ka qalin jabiyay dugsiga sare ee Carroll ee magaalada Ozark 1992, halkaasoo uu ka ahaa ciyaartooy iyo gudoomiyaha naadiga maktabadda. kadib wuxuu ku biiray ciidamada cirka ee Mareykanka. wuxuu guursaday isla 1992 iyagoo kala tagay 1994. McCraney ayaa mar kale guursaday 2001, caruur ayayna isku dhaleen xaaskiisa. McCraney wuxuu ka shaqeynayay kaniisad, balse noloshiisa intii u dambeysay wuxuu ka shaqeynayay gawaarida xamuulka. markii uu ka baxay ciidamada cirka, McCraney xabsiga ayaa loo taxaabay, wareysi ayuuna bixiyay. sidoo kale sargaaladii Raina ayaa sheegtay inay ku markhaati furayso in McCraney uu yahay codkii canjalada duubneed, taasoo uu taliyaheeda iyo 3 askari ay ugu hanjabeen inay dili doonaan hadday sheegto. McCraney hadduu 49 sano jir wajahaya 5 dacwadood oo dil toogasho ah oo lagu dilay JB Beasley iyo Tracy Howlett. hadda wuxuu ku jiraa jeelka, waxa uuna sugayaa maxkamadeyntiisa oo loo balansayaa 17 bishan Abriil 2023. qoysaska labada gabdhood ayaa dareemaya guul, taasoo ah in la soo qabtay dambiilihii saxda ahaa ee farxumeeyay dilayna gabdhahooda, iyagoona rajaynaya 20 sano kadib gabdhahooda ay cadaalad u helaan. ma aaminsan tahay daawada in McCraney uu yahay dilaaga saxda? fikirkaaga nagula wadaag qaybta hoose. mahadsanid.